السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكن وهذا التي في تضبطكي مع المكمل على قدا وطن وعلى وناسين مالك استمالك الدنيا كشتان مرة بعد مستحضر وحنا نتقبل هذه العلنا سودا وطن وركيجا ونقي بيسان وحنا نتقبل هذه العلنا إلى كوميتي الصوب الإنسان يردوا على السنة يوم شيء ذي وركع هو وين محبينات ولد اسمه المدن عبد الرحمن محمد عبد الله عر أيها كورمير هولد هو بحد ذلك إمارة كهالكولين عكله وكورمير كسمر إذا ماذا قرنك هالكاسو قارو بدل كسمية دينا عكله مدحوينها أيها دكتور كسب مقعبي كوها كسابسن إنه لكلية إذا قرنك بقول كيبا لما بقول إياه كونسر halkaas ciidamada badoodu ay mahadcelin iyo barbaare ay kuga wajibeen dowladda Puntland ayaa la tacaalaysa dagaalkii ugu cuslaa abid ee dhexmaray iyaga Daesh duleeyda Galmudug dhinaca kale boosaas waxa la soo sheegaya in laga helay badda sinteeda oo baraad iyo aad u badan oo dad ku saleen mucjisadii badda ka soo baxday waana weligood barwaarag kalaad wiilwal ayaa yimid magaalada Hargeysa halkaas uu salaadiinta qaar Somaliland بدو هالدور كذا وكلا كل ماي هل كان صرنا بدين تي وكذا ودي Somaliland هي دينا صل كونفرد وخاتمه وهلا كل إحدى حدنا يدينا عاصي مكاتنا فيليو إنه يقول ترينا عاصي السدع هالكني وهذا التيفي تضبط كي ما كمل أنا قد أوصل دافع عالمك بحوري أو على الله إنه عاونا سوي في السن بالحوارات شو بالنسبة لنا عبد الرحمن محمد عبد الله عر ياوك عتمي مرتقاد وكهلي دينا إماراتك هالكاس وكلا تنوديجيسا استجا إماراتك مدحوينها ayaa laga filayaa in halka mashaariicdii horumariya hakad kala galiyay xilligii dawladii hore ee madaxweyne ka ahaa mudane Musabixi Cabdi oo hore loo soo saxay Allah u naxariistay Axmed Maxamed Siraayi xilligiisii kuwaas oo ku saabsanaa wadooyinka iyo horumarinta qaranka gaar ahaan in la helo dekedaha maalgelinta ay ku sameeyeen in la helaan garoonka diyaaradda iyo dekada inta ay wada shaqeeyaan walow aanan garoonka diyaaradda wali shaqeeynin halka dekadii iyadoo ay taabaqad tahay madaxweynaha ayaa laga filayaa inuu mashaariicdii xilliga aan sidoo firin iyo isla xisaabtan dib la soo celiyo dhinaca kale ay barbar socoto inay ka taageeraan dhinaca amniga madaxweynaha ayaa la filayaa halkaas inuu laga soo saari doono warar caadiyaad walow aan si taliya xilligii uu tagay aan warar rasmi laga hayn halka waa fayeenka madaxweynuhu uu sheegay in madaxweynuhu ku hawlan yahay la kulanka madaxda Imaaraadka iyo kuwa kala duwan ee diblomaasiyiinta ku sugan Imaaraadka badidooda sida Mareykanka, Yurubiyaanka, Afrikaanka iyo wadamo badan ku sugan Caraba madaxweynaha ayaa weheliyaan xubno wasiiradiisa kamid ah iyo bulsho kale oo kamid ah oo ka tirsan la taliyaashiisa sida la taliyaha amniga la taliyaha dhaqaalaha iyo horumarinta qaranka wixii war ka soo kordha wararkeeda ba ka daawan doontaan madaxweynaha ayaa dhinaca kale kormeer ku maray ciidamada qaranka halkaas uu kala bedelay qaarkood madaxweynaha uu bedelay jarankii ciidanka oo hore ahaa mudanataan haddana loo bedelay mudane xabse dhinaca kale madaxweynaha ayaa bedelay taliyaha ciidanka booliska taliyaasha booliska bedelay ayaa ku ugu horeeyay tala bedelo walow aan kuwii kale wali la bedelay la sugayo baadin loo deyn doonay inay ku sii joogi doonaan dhinaca kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa kordhiyay boqolkiiba 250 qof kasta oo ciidanka qaranka ka mid ah meel kasta daafaca dawladda ka joogo kuwa dadban iyo kuwa tooska loo arkaba markii koobaad ee lagu daro dhaqaale inta in leeg loo kordhiyo in ciidamada qaranka kuwa booliska kuwa amniyaadka ciidamada militariga kuwa cirka dhulka ay halku sheegay madaxweynuhu inuu sameyn doono ciidamo kayd u noqon doona halkaas uu magacaabay guddi ka kooban 7 xubnood halka uu magacaabay guddiga amniga iyaguna 8 xubnood gudiyadaas ayaa labada qodob wax ka shaqeyn doonta guddida amniga sida wada hadallada bulshada dhibaatooyinka iyo dhagaraha dagaalkii soo ka socday iyo kuwa haatan ka socda dhinacan xuduudaha meel kasta amniga qaranka ku saabsan in iyagu ka soo taliyaan halkii kuwa kale ka talin doonaan in dib hagabayn lagu sameeyo ciidamada loona sameeyo card ay ku hawlgalaan caafimaadkooda iyo noloshooda dawladda ay ka faala qaadi doonto sanad kastana waxa kori doona $50 ayaa korinaya ala shakhsi oo miisaaniyad kasta oo sanadla ugu jiri doona dhinaca kale garaad wiilwal ayaa ka soo degay magaalada Hargeysa halkaas ku qaabileen salaadiinta Somaliland qaar kamid ah salaadiinta ayaa hadma sharafay isugu yimaadeen sheegay inay kullu nabadda mar walba taageereen intii hore tanba horena aanay u jirin dhibaato dhextaaleeyay gobolka Sool haatan aanay jirin sida dagaaladii sokeeyay ka dhacay magaalada
laascaanood ay aafeeyeen bulshada kale aanay kala irdeeyeen haatana loo baahan yahay in bulshada la soo celiyo wixii dhibaatada dhagara ka dhacdayna la iska cafiyo wixii siyaasadna ay ka wada hadli karaan cidda haatan politicalka waa haysa dhinaca kale jamhuuriyadda somaliland shirka waxaa ka qayb galay mudane ismaaciil halka waxaa ka qayb galay ismaaciil jirde oo isagu ah aqoonyahanka haatan ugu dada weyn ee kala soo shaqeeyay qaranka ahna xubin ka mida guddida uu magacaabay madaxweynaha qaybta amniga madaxweynaha soomaaliya ayaa weli alankaa ku bixinaya daafaca caalamka walow waa la sheegay masar ay sheegtay inay haatan ay diyaarisay ciidankii ka qayb geli lahaa dibadhiska soomaaliya ciidamadeeda kuwaasoo laga ragi doono magaalada muqdisho todobaada soo socdaya walow aan xalkii la gaadhin joogitaanka etoobiya iyo halkii siday sheegtay baarlamaankuna aanu ansixinin halka markii hore la sheegay ciidamada etoobiya ka bixi doonaan soomaaliya ciidamada masar ayaa haatan wararku waxay sheegayaan inay iyaga iyo eritrea iyo soomaaliya ay iska kaashan doonaan badda cas si markii hore ay ku maqlayseen halkii ka biyo diiday dowladda etoobiya marka haddii eritrea soo gasho madaxweynaha soomaaliya ayaa soo maray wadamo badan hadduu maantana uga baxay wadamo kale afrikaana madaxweynaha soomaaliya ayaa lagu eedeynaya wararka qaar ayaa qoraya in 260 milyan madaxweynaha laga xamiliyo kuwaasoo yaala dalka Switzerland wararkaas oo tafatiran waxaan ugu soo dhigi doonaa wixii insha Allah dabayaaqad dib haddii la ka dhigo dhinaca kale dowladda Puntland ayaa la tacaalaysa dagaalka ugu cuslaaday abid dhexmaray iyaga Daesh halkaasoo ciidamada qaar ka mid ah mina loo dhigay siday sheegeen waa warbaahinta Puntland halkaas oo ku dhaawacmay qaarna ay ku dhinteen taliyihii ciidanka watay taliyihii ciidanka ayaa madaxweynaha Puntland uu ka codmay magaalada Boosaaso halkaas kula kulmay dhaawacii halkaasoo loo qaaday dibadda mudane xanaano taliyaha ciidanka lagu magacaabay Jaamac mudane xanaano ayaa ah taliyihii ugu horreeyay dadaas ee ku dhaawacma halka la sheegay tiro kale inay ku guriyadeen goobta weli alanka dagaalka ayaa ah mid aad iyo aad u qaran halka guul ay ka sheeganayso Puntland oo buuraleyda calmadu ay hore u galeen halkaas laga baqsay in miinooyin iyo arrimo kale ay ka sameeyeen walow ay soo bandhigeen meela hogaga oo ay yiraahdeen Daesh baa ku gabareysay balse tan iyo xilligii ay dagaalka al-shabaab ama Daesh iyo wixii la halmaray ay Soomaaliya ka dhaceen waa markii ugu horeysay dhul inta in laga saaro lana soo bandhigo dhulkii ay ku gabareyseen dhinaca Puntland dhinaca kale Soomaaliya ayaa wali dagaaladii al-shabaab iyo iyaguna halkoodii ah walow dowladdu ay kula ka sheeganayso haatan tababar ciidan dib la ay dowladdu dib habeen ku samaysay ciidamadeedii wararka ayaa sheegaya in ciidamada Puntland ay markii caabin aad iyo aad kala kulmeen nimanka walow ay jabiyeen dadka bulshada Puntland iyo bulshada Soomaaliyeed ayaa iyaguna aad iyo aad u salwiyay in la cilmi tiro buraa calmadow in nimanka odayaasha ah ee la yiraahdo Daesh dhinaca kale magaalada Boosaaso ayaa wax lagu arkay hombar aad iyo aad badan taasoo ka soo caariday badda la garanayn cidda laysay min la suneeyay ma badda la suneeyay ma iskeed baa dhibaato kale uga gumtay walow aan cid ka hadashay aan jirin dhalinyarada Boosaaso ayaa ku soo bulugtay goobo kamid ah jooga ayaa ka soo duway kamarado dadkaasoo sheegayeen dad hombaradan ay badda ka soo caariday hombaradaas ay dadka qaar wax ku tilmaamay ilaa ay ahayd 200 ilaa 300 mid inta kalena ay weeyeen ma duubin ma ka gaarsiin kara weynay waa xil kasta dadka qaar ayaa ka shakeynaya halka laga calmadow dagaal ka socda kuwana ay yihiin dagaal ka bilaabmay badda in loo baahan yahay la ilaaliyo badda iyo xirkii dhulka iyo badka Soomaaliyeed badqabkiisa ayaa dowladda Soomaaliya xil saarantay walow aan jirin cid ka hadashay halkani waa hada TV oo toddobaadkii maalmaha kamid ah anaga daawataan wixii warara ee ka soo kordha madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi iyo shirkiisa uu la galay dhinaca Imaaraadka waxa ku daawantaan wararka iyagoo faahfaahsan iyagoo aan falanqayn doono halkani waa hada TV dhinaca kale madaxweynaha Trump ayaa la wareegay xilka waa dalka Mareykanka halkaas uu qodobadiisa ugu horeeyay uu ka xanibay Afrika lacagtii la siin jiray Mareykanka sii jiray dhinaca kale waxa hoosta ka xariiqay in qaxoontiga sharci darrada ku soo galay iyagoo ku cilmi dibadda wararka qaar ayaa iyaguna sheegaya dalka Sacuudi Arabiya inuu 600 bilyan galin doono Mareykanka investment ku sameyn doono madaxweynaha Trump ayaa mid aad dardar iyo ifafaalo soo baday dhinaca dhaqaalaha wadamada qaarna uu soo dhaweeyeen isagoo halkaasi boqolkii casho soo socda uu saxay
wadamo badan oo adduunyada ah sida inuu marinada ka mid ah adduunyada oo dib ugu socon gacanta Mareykan ka dhigi doono inuu isagu yahay lambar 1 ka dhaqaalihiisana oo sare u qaadi doono dhinaca kale dadka qaxoontiga daafaca caalamka ku sugan ee iyagu loo tiriyo helay ama isdiiwaan geliyay xilliyo hore ee qaxoontiga ku hayd u qaabila Mareykanku ayaa laga kansalay fariidoodii kuwaasoo qaar ahayn dalka Afghanistan qaarna ahayn Afrikada Ghana iyo Uganda iyo waddanka la yiraahdo Kenya dad badan ku sugnaan la soo xiriiray ayaa sheegay inay la geliyay hakad fariigoodii dibna loogu fursay qaarna sheegeen sida ay Afghanistan in sharciyadoodii iyo xidhiidhba toos automatic loo diiday halkani waa hada tiifa toddobaadkii marmar laga daawatan waxaan idiga tagayaa nabad qabiyo nolol kasta wax kala duwan codsanaya inaa wixii waray wacala ama wixii fikrada haysan hoos noogu laabtan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh